ololahani uu maanta daafuray gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu ayaa waxaa loogu magac daray ololaha taakulo taas oo loogu gal leeyahay in bisha barakeysan ee Ramadaan lagu gargaaro dadka danta yar ee ku nool magaalada Muqdisho gaar ahaan barakacyaasha iyadoo taakuleyntaasi ay ka qayb qaadanayaan shaqaalaha dawladda hoose xamar iyo maamulka gobolka Banaadir. daafurka barnaamijkani taakulo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan dawladda federaalka Soomaaliya, xogayaha guud ee maamulka gobolka Banaadir, qeybaha bulshada iyo madax kale. xildhibaan Mustafa Cali Dhuxlo oo ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka Soomaaliyeed waxa uu sheegay in garab istaaga dadka danta yar ay tahay mid diinteena suuban ay nafarayso. haddii marka adiga gurigaaga caruurtaada iyo hooyada iyo aabaha ay nolol fiican ku jiraan oo laga yaabo maalintii inay cuntada haystaan xataa banaanka lagu soo daadiyo, laakiin deriskaaga laga yaabo inaysan afar haysan ama suxuur haysan, waxaa laga yaabaa inay arrintaas runta kugu soo noqon karto ama caruurtaada ay ku soo noqoto. marka waxa ilaahayna siiyey inaan dadka dhibaataysan la wadaagno waa waajibna saaran, weliba tusaale waxay noo qortaa caruurtaada oo kugu daysato. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineeriisu ayaa ka hadlay ahmiyadda ololaha taakule ee bisha barakeysan lagu caawinayo dadka danta yar. runtii waxaan aad marka hore ugu mahadcelinayaa dhammaan shaqaalaha maamulka gobolka Banaadir oo gartay dareemay ahmiyadda ololahan isla markaana mushaarkooda qayb ka mid ah u diyaar garoobay inay ku taakuleeyaan dadkaas muxuu ahaa walaalaheen ah ee aadka u nugul noogana baahan inaan gacan siino. waa bilow sida la sheegayna waa qorshe olole aan rabnay inuu maanta bilowdo socdo ilaa iyo Ramadaanka, kadibna Ramadaanka dhexdiisana loo gudbo qaybtiisa labaad ee ah u diyaar garowga ciidda. waxaan aad ugu kalsoonahay shacabka Soomaaliyeed inay u istaagayaan ololahan kaalin muuqatana nagala qaadan doonaan. waa la soconnaa madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya iyo ra'iisul wasaaraha iyo dhammaan dawladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadirba waxa ka go'an waxay tahay in shacabka loo adeego. maamulka gobolka Banaadirna aan ballan qaadnay inuu noqdo maamulkii u adeegay shacabka, sidoo kale degmo walbana waxaan rabnaa maamulkeedii in sidii shacabkaas loogu adeegi lahaa ay u tafaxaytaan. Nuur Saciid Taaliil, telefishinka qaranka Soomaaliyeed, magaalada Muqdisho.